gudoomiyaha maxkamadaha Buuhoodle iyo Daadmareer iyo gobolka Togdheer Barkhad Isxaaq Barre way weheliyaan gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee gobolada Togdheer iyo Daadmareer iyo Buuhoodle ayaa wuxuu ka hadlay waxqabadkii kala duwan ee saddexdii sanadood ee u dambeysay u qabsoomay waxqabadka kala duwan oo soo bandhigayna waxa kamid ahaa xafiisyo kala duwan oo duba lagu sameeyay dhismayaal cusub oo laga hirgeliyay maxkamadaha kala duwan iyo shaqaale kala duwan oo la qaatay gudoomiyaha maxkamadaha Buuhoodle iyo Oodweyne ee gobolada Daadmareer iyo Buuhoodle iyo gobolka Togdheer Barkhad Isxaaq Barre oo murtaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ah sida tan 2022 iyo 2020 marka aniga garsoore Cabdulle Aadan oo ka san maxkamadda Rafcaanka waxaan runtii ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha maxkamadda Rafcaanka si uu inoogu faahfaahiyo warbixin kooban oo inaga siiyo waxqabadka ballaaran ee ka hirgalay Togdheer iyo Daadmareer aan jeclaanay inaan warbixin kooban aan ka bixino bal saddexdii sano ugu dambeeyay maxkamadahan gobolkan Togdheer iyo Daadmareer wixii ay ummadan reer Soomaaliland u qabteen gaar ahaan labadan gobol ee Togdheer iyo Daadmareer haddii aan waxqabadka aan ummadayada u qabanay aan ku horeeyo xagga dacwadaha oo shaqadayada koowaad ay tahay inaan dadka u warqaadno oo aan kala soorno haddaan nahay bahda garsoorka waxa saddexdan sanadood 20kii iyo 21kii iyo 22kan dhammaaday iminka ay ku guuleysteen bahdan garsoorka ee ka kooban garsoorayaal iyo kaaliyaal iyo gaarsiyaal iyo adeegayaalba inay saddexdaa sano ku dhammaystiraan 10,871 dacwadood 10,871 dacwadood oo isugu jira ciqaab iyo madani waa saddexdaa sano haddaan ciqaabta sheego miisaal ahaan inta ciqaabe ay dhameeyeen 3,429 dacwadood oo ciqaab ay dhameeyeen waxay madani dhameeyeen saddexdaa sano marka madani ahaan aan ka soo qaadno 7,442 dacwadood oo markaa guud ahaan isku noqonaysa 10,871 dacwadood waa يعني دعوة آذو بدن marka loo eego culayska ay leeyihiin iyo tirada garsoorayasha iyo kaaliyasha dhameeyay arintaas ilaahayna waan ugu mahadnaqnaa waxa kale oo jirta saddexdaas sano gudahood dacwadaha aan xataa aanu khasnada dawladana ku xareynay dakhli iyagoo dacwadaha badankooda duruuf iska jirto oo dadkeenu kees miskiin soo qortaan gudoomiyaasha maxkamaduhuna markay arintaa aad u hubiyaan inay ka aqbalaan haddana intaas ka soo xirootay ee aanu kaga qayb galnay khasnada dawladda cashuur ahaan saddexdaa sanadood waxay gaadhaysaa 4 bilyan iyo 130 malyan iyo 297,000 iyo 297 shilin waxa weeyaan yani 4 bilyan haddaan iska badaya fraction intan googo 4 bilyan iyo 130 malyan ayaanu saddexdaa sano ugu dambeeyay garsoorkaasi uu soo saaray oo ka dhashay dacwadaha isugu jira ciqaabta iyo madaniga ee aan ku sheegnay 10,871 waxaana mahadda taa iska leh dacwadaha intaa laga dhammaaday garsoorayaasha iyo kaaliyayaasha iyo gaarsiiyayaasha oo juhdi weyn ku bixiyay inay dacwadaha ay dhammaystiraan saddexdaa sanadood dacwadaha intaa leeg وهدي عن إسراء قيبي
garsoorka joogo ilaa 35 aan ku qiyaaso garsoorayaasha mid walba ay ku soo hagaagayso 310 saddexdaas sanadood. waa Siciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga Gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.